xaflad lagu maamuusay ardada dhigata madrasada Suldaan Cali Duude qaybta Qur'aanka ayaa lagu qabtay gudaha madrasada ee deegaanka Dhudub ee dowlad deegaanka Soomaalida. قرآن ربي غايتي وفيه سر سعادتي تحلو حياتي دائما بقراءتي وتلاوتي قرآن ربي غايتي. xafladan waxaa ka soo qayb galay marti sharaf fara badan oo kala duwan oo bulshada qaybaheeda kala duwan ka kooban. لاحت ففاح عبيرها تشدو بزهو راجزة أنا حرة دولية وللجهود معززة. لاحت ففاح عبيرها تشدو بزهو راجزة أنا حرة دولية وللجهود معززة. قرآن ربي غايتي وفيه سر dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladan sharafta badan ee ardayda sharafta leh ee dhiganaysa quraanka waalidiinta xubno ka socda dhinaca maamulka marti sharafka culimada nala jooga macallimiinta dugsiga quraanka macallimiinta iskuulka dhammaan ka soo qaybgalayaasha hooyooyinka gabdhaha waxaan idinku salaameynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. waxaan bilaabanaynaa furitaanka xafladeena oo galabta lagu soo khatimayo abaalmarino insha Allah lagu guddoonsiin ardaydii sharafta lahayd ee sida quruxda badan quraanka oo akhrida kartanka ka qayb galay. waxaan halkan uga yeerayaa mahad diiriye nuur ku soo dhow mahad. barakallahu fiikum walaalayaal ilaahay baa mahad iskale awalan ثانيا waxa mahad iskale xafladan quruxda badan yani waxa weeye ku salaysan diinta islaamka iyo shariicada islaamka kor u qaadideeda iyo quraanka kariimka sharfidiisa. waxaan mahad u celinayaa bacda Allah subhanahu wa ta'ala intii soo agaasintay iyo intii kharash ku bixisay iyo intii juhdi iyo waqti ku bixisay iyo intii yani waxa weeye saci iyo ka qaybgal ku bixisay iyo intii cadiyo ku bixisay intaba waxaan leenahay jazaakumullahu khayral jazaa. abaalkiina ilaahay ha idin mariyo jannatu firdawsana ilaahay abaalkiina ka dhigo. runtii waxa jira dad meel fog uga soo kacay oo waqti badan ku soo bixiyay tilaabadina ilaahay ha idin ku xisaabiyo ajriga insha Allah ta'ala ilaahay idin xisaabiyo. ardada quraanka soo baratay oo yani waxa weeye tartanka qurux badan soo dhigtay oo sidii la rabay macalinkoodina u sharfay ayana waxa weeye uga soo baxay kaalimahoodina waxaan leenahay dhammaantiin waad guulaysateen waa intaas loo galaysi dhawaado. wuxuu walba waxay leeyihiin ahmiyad iyo niyad. intani waxay ka mid tahay ahmiyadda iyo niyadda. waxa ka sii ahamsan hooyadu waa mucallimada koobaad ilmaha salaadiisa iyo soo dadaalkiisa iyo keed inuu kaalinta koobaad galo qofka koobaad oo uu guuleysanayo macallimada koobaad waa hooyada iyo aabaha siiba hooyada thumma al-abu. inta ka bacdi ayaa waalidiinta dadka inta kale oo ehelka waxay leedahay inay matqana ayaguna ku garab siiyaan. waad ogeydeen kun mucalliman oo mutacalliman oo muciinan bihim oo yani waxa weeye muhibban wala takun khamisan fatulika bu nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi. waxaad noqotaa kii diinta islaamka dadka barayay ama kii asagu baranayay mutacallimka ahaa ama kii u kaalmeynayay cadiyada ku bixinayay ama kii jeclaayay raadiga ka ahaa. dabcan intuu wax waayo kale ha noqon mid shanaad oo marka aad halaagsato. marka waxaan leeyahay walaalayaal dadaal badan aan sameeyno intaan iyo in kaleba aan galino juhdiya tartanku wuu socon doonaa. qof walba waxaad ku targashaa ilmaha inuu kaalinta koobaad galo adigu inaad kaalinta koobaad gasho si ilaahay xaqiisana kaalinta koobaad laga galiyo guulaysta insha Allah ta'ala. walaalayaal ilaahay aan ka baqno ilaahay cabsidiisa laba shay ka kooban tahay imtisaalu awaamirihi wajtanaabna waahihi bay culimadu dhahaan. awaamirta ilaahay subhanahu wa ta'ala uu amray oo aan qaadano wixii ilaahay uu naga reebay oo aan ka harno labadaas ka kooban tahay ilaahay cabsidiisu. marka ilaahay aan ka baqno xafladan xaflad aad u baraka badan weeye. ilaahay quraankiisa kariimka ha xaflad loo dhigayo weeyaan waa ahmiyad weyn bay leedahay. ilaahay subhanahu wa ta'ala ha noo taam yeelo dadkii ka shaqeeyo arinta ka shaqeeyay oo nidaamkaas lahaana ilaahay ha u dadaalo ilaahay meesha ka toliya ka tiiriyo khayr badan baa noo hirgalay. dadka waalidiinta ah oo ilmahooda u kasbay inay horumarka gaaraan oo diinta ilaahay ay si fiican u bartaanna ilaahay subhanahu wa ta'ala janna firdawsaha ku abaal mariyo. halkan waxaan isugu nimid inaynu ku yara weynayno oo ku sharafno kalaamka ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaynu isugu nimid. ardaynu halkan quraan kaga qaadnay imtixaan
ما شاء الله aad bay u fiicnaayeen 5 juz oo quraan aan ka qaadnay aad bay u fiicnaayeen ما شاء الله waxaan leeyahay marka halka laga sii wado dadaalka iyo maxay ahayd juhdiga la gelinayo ilaahay kalaamkiisa waxa waqti lagu bixiyo oo wax lagu barbaariyo oo ubad lagu karsado waxa uu qiimo badan ilaahay diintiisa ilmaha ku koriso waana waxa ugu horeeyo ilaahay ku weydiin doona qiyaamaha ubadka tarbiyada ilmahaaga iyo dhaqanka wanaagsan oo la baro quraanku caruurta kaliya uma soo dagin quraanku wuxuu u soo dagay dadka oo dhan in la barto oo lagu dhaqmo inagoo dhan ayuu waajib inagu yahay bal ilmahan barayno oo ku garanaysa laga yaabo inaan ku olayno ku qasabno inagu inaga waajibsan ayagu mukallafiin ma bahanba takliifkii ayaga intooda badan wali ma fuulinba anaga laakiin takliif baa ina saaran ilaahay baa ina gaarsiiyay xilligii qofku uu noqon lahaa qof mas'uul ah oo naftiisa mas'uul ka ah wa innahu la dhikru laka wa liqawmik wa sawfa tus'alun ilaahay baa quraanka wuxuu ku yiri quraanku sharaf buu ku yahay adiga iyo dadkaaga qoomkaagaba waana la idin weydiin وانا لو ويدين معلمين تا gees walba inaga fadhida oo quraanka ilaahay dhigaysa waana la weydiinaya ilaahay markaynu hor tagno hadaynu quraanka baran waana la weydiin garanaysa la dhaho asxaabu sufa muhaajiriin u badnaa markaas baa rasuul allah dadkii maalka qabay waxay la tageen dhaqaalihii iyo adduunkii ajirka ayaa grubsaday maxaa anaga noo xal ah kaasoo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu baray tasbiixda iyo salliga dhikriga ilaahay uu baray taas baad cidii in kaga horeysanaad ku gaari kartaan cidday ka dambaysanaysan idin ku soo gaareen buu marka quraanka la barto waxaan rabaa inaan ku soo ururiyo warkayga ardadan hashana quraanka ka qaadanay aad bay u fiicnaayeen macallinkooda Allah barakeeyo waa uu la soo macallimiintooda waa ay la soo dadaaleen waxaan leeyahay macallimiinta halkaad maraysaan ka sii wada insha Allah ta'ala waalidkana waxaan ka codsanaynaa inay xoojiyaan waalidku baraarugeen hooyooyinku waa baraarugeen macallimiinta laga warhayo oo ardada laga warhayo oo quraanka iyo ilaahay kalaamkiisa la weynayo oo dadka dhigaya hal la weynayo oo meesha lagu hayo hal la weynayo waan ku barwaaqoobi jirnay dad quraan jecel baan ahayn dad culimada jecel baan ahaan jirnay culimada iyo quraanka laga faa'iideysto Allah idin barakeeyo kaalimihi ardada galay ayaa waxaan rabnaa insha Allah ta'ala Sheekh Idris inuu inoogu yeero ardadii kaalimaha gashay saddexda ardada ugu sareysa ayaan sharfaynaa oo wax yar oo shaah siinayna insha Allah ta'ala kuwa kale macallinka ayaa ayaguna shaah ka bixin doona hadii la yiraahdo soo dhaw Sheekh Idris insha Allah ta'ala hadda waxaan guda galaynaa hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala idmo saddexdii arday u yeeridoodii oo mid u galay kaalinta koobaad ka kalena uu galay kaalinta labaad mid ka kalena uu galay kaalinta saddexaad insha Allah ta'ala kaalinta koobaad waxaan u yeerayaa gabadha la yiraahdo magaceedu yahay Sawda Abdirazaaq Sofa barakallahu fiiki ardayda labaad ee ku guuleysatay kaalinta labaad wuxuu noqonayaa Aisha Ahmed Abdi gabdho ma sha Allah هذا قبضي صحيح wuxuu noqonayaa ardayga ugu dambeeya ee ku guuleystay kaalinta saddexaad wuxuu noqonayaa Cabdiraxmaan Mawlid Xasan تفضل كاميرا فيه